aniga waa Maxamed Cabdiqaadir Istanza kuna sugan magaalada Laascaanood waxa aan bogaadinayaa golaha halabuurka gobolka Sool oo buugan hortiina ka muuqda oo quruxda badan soo saaray buugan la yiraahdo tix iyo tagto waa buug cajaa'ib oo cajiib ah waa buug aan isleeyahay waa waqti la soo saaray qarnigan kuwooda ugu muhiimsanaa waxa ku urursan suugaanta 15 gabayaa oo hore wax looga qorin qalinleyda Soomaaliyeed ee hore u taabanin waxyaabaha cajiibka buuga ku arkay waxa kamid ah noloshii Soomaalida dhacdooyinkii iyo taariikhdii afkii iyo suugaantii habnololeedkii bulshada waa buug ay mudan tahay ama uu mudan yahay qof kasta oo Soomaali ah inta aanu geeriyoon ka hor inuu akhriyo mar ama labo marka waa buug aan ka marqaati kacayo suugaanta ku jirta inay tahay suugaan wax ku oola waan hambalyeynaa insha Allah bandhigiisa oo sida uu ii sheegeen golaha halabuurka gobolka Sool ee uu dhacayo bishan 12 sanadka 2020ka 11keeda san filayo Ilaahay raahdo waa buug aan isleeyahay wuxuu wax ka bedeli doonaa aragtiyo badan oo jiray waa buug xambaarsan qiimo suugaaneed iyo qurux afeed intaba aad iyo aad bad u mahadsantihiin. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Tix iyo tagto hibadii iyo hal abuurkii maansayahankii aan horay waxba looga qorin buugan oo ah curadka golaha hal abuurka gobolka Sool waan akhriyay waxaan dul maray markii saddexaad waa buug la yaabo badan ay ku jiraan buugga intaana gudihiisa waxa ku jira u galin buugga waxa dacwaday shirkadda Google oo ah shirkad asaasan oo madbacadaha Soomaaliyeed shirkadaha ugu wanaagsan kamida inta kadib aan u soo tago buugga tix iyo tagto buuggan waxa ku jira suugaan aan horay aynin u arag oo dadkiina suugaanyahan kama suugaanta jecel buuggan 15 gabayaba ku jira suugaantoodii 283 bog weeye waxyaalaha uu ka kooban yahay dhaqankii Soomaalida ee hore qabkii qofka Soomaaliga lahaa qaab nololeedkii qaab dhaqaalihii ay bulshada Soomaaliyeed lahayd baa ku jirta waxa ku jira suugaantii qoyska Soomaaliyeed iyo sida ninka ragga ahi uu gabadha uu qaba ama xaaskiisa ama dumarada xitaa uu la hasaawayo uu la dhaqmi jiray waxa kale buuggan qodobada ugu muhiimsan aan ku arkay kamida buuggani wuxuu ka qayb ka qaadan doonaa xalinta khilaafaadka dhibaatooyinka hadda jira bulsho ahaan Soomaali hadaynu nahay waxaan isku daynaa inaynu dabaqno nolol kale laakiin buuggani isaga nolol gaar ah oo qaabkii hore Soomaalidu wax u xalin jireen ay ku jirtaa si wada xaajoon jireen sida arrimahooda u dhameysan jireen iyagoo wax ka midaysan si wax ugu kala duwanaan jireen haddana tusaale wuxuu ugu yahay dhib kastoo dhacana wuxuu tusaale iyo hoga tusaale ugu noqon doonaa in xalkeeda uu soo dhaweeyo buuggani sidoo kale suugaanta buuggan ee muhiimka ah ku jirta waxa kamid ah tilmaamaha habdhaqanka qofka waxyaalo badan oo markaad aragto aad xasuusanaysid inaad nolol hore oo wanaagsana aad la nooshahay iyo nolosheenii hore maadaama aynu bulsho madani u soo guurtaynahay buuggani wuxuu kayd iyo xasuus u ahaan doonaa bulshadii hore ee reer guuraaga Soomaalida ahayd iyo qaabkii wanaagsanaa ay u dhaqmi jireen. Magacaygu waa Cabdinaaf Maxamed Saciid anoo ku hadlaya afkii xubnaha iyo hormuudkii guud ee golahaba waxaan aad u hambalyeeynaa ummadda Soomaaliyeed ee jecel in suugaanta horumarto ase wax fara badan ay ka soo horumareen waxaanu aaminsanahay inaanu gudanay waajib fardu kifaaya ah oo nologa baahnaa inta ka soo waxaan mahadinayaa buugan caaw hortiina yaal tix iyo tagto hibada iyo hal abuurka maansiyahankii aan horay waxba looga qorin waxay kaga dhigi doontaan qalinka madbacadda Google oo idin la wadaagtay daabacadda buugga waxa sharafno inaad nagala soo qayb gashaan markay taariikhdu tahay 12 December sanada 2020